Maalin maalmaha ka mid ah, waxaa dib u soo laabtay Tingu isagoo dhex socda kaynta dhexdeeda xilli habeen ah. Wuxuu arkay gabar aad u qurux badan oo taagan wadada dhexdeeda. Aad ayuu ula yaabay in uu ayada arko. Runtii aad ayay u qurux badan tahay iyada. Weligay ma arag gabar saa u qurux badan noloshayda. Haye, yaa tahay adiga? Habeen barkan halkan maxaad ka qabanaysaa? Ma og tahay kaynta dhexdeeda waxa ku nool tuugo aad u fara badan. Kuma ogolaanayo in aad kaliya halkan joogto. Waxay tiri, waxaan u socdaa xaafadiina u dhow ee ma ii caawin kartaa? Haa, dabcan, baaskiilkayga gadaashiisa ku soo fadhiiso. Waxay tiri, waa mahadsan tahay. Wuxuu yiri, aad ayaan u faraxsanahay. Maanta waxay ahayd maalintii ugu horeysay oo ay gabar gadaashayda soo fadhiisato. Gabadhii waxa ay soo fadhiisatay gadaashiisa. Tingu waxa uu bilaabay in uu ku heeso hees dhaqameed, wuxuuna ku bilaabay अरे पल पल न माने टिंकू जिया, अरे टिंकू जिया, अरे मेरा जिया, आज इश्क का मंजन चखूंगा पिया. Tingu waxa uu sii watay baaskiilkiisa asagoo ku sii socda xaafadiisa. Balse wax yar kadib, gabadhii waxay isku beddeshay mid sixirool ah. Tingu waxa uu soo gaaray xaafadiisa. Waxay ahayd waxa lala yaabo inay arkaan Tingu oo baaskiilkiisa saaran qof sixirool ah. Waxay ka ordeen meeshii ay taagnaayeen, waxa ay u ordeen Tingu dhinaciisa. Waxay yiraahdeen, war Tingu, caawiyaa kula socda. War ka carar meesha oo noloshaada badbaadso. Wuxuu ku yiri, war hedhe, maxaad la sii cararaysaan? Ma waxaad aragteen qof sixirool ah? Wuxuu yiri, waxay u muuqataa in ay dhammaantooda ay wadwaalan yihiin, laakiin anigu ma danaynayo. Maanta waxaan dhadhamin doonaa jacayl. Tingu waxa uu u sii socday gurigiisa ilaa uu ka gaaro qolkiisa. Tingu wuxuu yiri, sacdan waa xilli dambe, waxa u malaynayaa in aad dahday. Dhib ma lahan, gurigayga caawa iska sii joog. Beri ayaan gurigiina ku geyn doonaa. Waxay tiri, okay Tingu, waa sida adiga aad sheegtay. Tingu wuxuu gabadhii u kaxeeyay qolka gudihiisa. Sidoo kale, dadkii xaafadda degnaa waxay soo gaareen Tingu gurigiisa. Waxayna bilaabeen in ay daaqada ka eegaan. Tingu wuxuu gabadhii ku yiri, halkan ku sii naso, waan kuu soo laabanayaa. Waxay tiri, okay Tingu, waa sida aad sheegtay. Tingu wuxuu nafsadiisa ku yiri, soo dhaqso. Maanta waxaad dhadhamin doontaa xoogaa yar oo jacayl ah. Dabadeed, Tingu waxa uu aaday qolkiisa si uu xoogaa yar u soo nasto. Dadkii xaafaddu waxay bilaabeen inay ka sheekaystaan gabadhii saaxiirada ahayd. Waxayna yiraahdeen, Tingu caawa wuxuu ku dhacay shirqool, waxaana laga yaabaa in ay disho isaga. Haa, waa inaan baxraynaa iyada, sababtoo ah caawa Tingu dhiiggiisa ayay cabi doontaa. Aan kala hadalno daaqada dambe ee gurigiisa. Isla markiiba dadkii xaafadda degnaa waxay u soo ordeen daaqadii gadaale ee guriga Tingu. Saaxiib Tingu, qofkii caawa kula socday yuu ahaa. Saaxiib Tingu, ma ahan waxaad u malaynayso. Run ahaantii caawa waad dhiman doontaa. Wuxuu yiri, war orod iga taga dhammaantiina, waad waalan tihiine. Waan ogahay in aad iga masiirsan tihiin caawa. Orod iga taga xaafadayda. Kadib, Tingu waxa uu xirtay daaqadii, wuxuuna aaday gabadhii. Wuxuu u tagay gabadhii oo fadhisa oo xijaab xiran. Asagana wuxuu fadhiistay agteeda. Isla markiiba gabadhii waxay isku beddeshay mid sixirool ah, wayna guuxaysay. Wuxuu yiri, hey, xijaabka ma iska qaadi kartaa? Wuxuu yiri, maxaa weeye codkan aad samaynayso? Ma in aad iga nixisaa rabtaa adigu? Laakiin anigu waxaas kama baqayo. Wuxuu yiri, kaalay, adiga maxaad iga xishoonaysaa aniga? Fur wajigaaga inaan arka ayaa rabaa. Isboobsii, waan sugi la ahay aragtidaada. Isla markiiba gabadhii waxay iska qaaday xijaabkii. Tingu aad ayuu u naxay. Wuxuu yiri, waxay isku beddeshay sixirool, waxay rabtaa in ay dhiigayga cabto. Dadka xaafadda degan run ayay ii sheegayeen, iyadu waa saaxirad, waa dhinta iga soo gaara.
haddaba daawade la soco qaybta labaad.